dallada wacyigelinta iyo isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland ee Sena ayaa maanta u furtay tababar qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee magaalada Burco. tababarkan ku saabsanaa wacyigelinta tahriibka iyo qabyaaladda waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco, isku duwaha wasaaradda duulista iyo hawada ee gobolada Bari. waxa ugu horeynta halkaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda duulista iyo hawada ee gobolada Bari, Cabdirasaaq Saciid Axmed, oo ku dheeraaday in tahriibku yahay aafo qaran soo dhex gashay dalka, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa waxaan filayaa waxaad bahdi iskuulaadka iyo bahdi waxbarashada maadaama bahdi waxbarashada meelaha isbeddelka uu ka yimaado ee dadka laga hormariyana oo goobaha dadka aqoonta leh ay joogaan. marka inaad iska wacyigelisaan tag dheer baa markii hore lagu xaman jiray, laakiin hadda waa laga badiyey. astaanteenu ha noqoto midnimo iyo magaca gobol ha noqoto haddii ilaahay ka dhigayo, taasaynu isku ognahay. wixii magaca gobolkeena ka hooseeya waxaan inaga mid ahayn haddii ilaahay ka dhigayo. intaas ayaan idin farayaa. midda saddexaad aan idin farayaa waqtigu aad buu u qiimo badan yahay. macallinkii tababarkan bixinaya injineer Maxbuub Xuseen Ismaaciil ayaa isna sharaxay qiimaha uu leeyahay tababarkan. olahaas oo ku saabsanaa ama wacyigelintaas oo ku saabsanaa tahriibka iyo qabyaaladda. marka kulankan maanta waxaan isugu nimid insha Allah rabnaa inaynu aqoon isweydaarsi ku sameeyno. gudoomiyaha dallada wacyigelinta iyo isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland ee Sena, Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, ayaa ku dheeraaday sababta u sameeyeen dalladan iyo weliba qiimaha uu leeyahay tababarkan ay fureen ardayda dugsiyada sare magaalada Burco, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa haddii aad nala fahanteen oo nala qaadatay weliba aad idin kala gudbisaan oo aad sii gudbisaan wixii kale aqoontiina ahaadna dheertiin anagu malihin waan wada garanay ama casharada halka ku saabsan waxa weeyaan aqoon buuxda ayay ahaayeen malihin. wixii kale aanu laga yaabo inaad isleedihiin waad dheertiin waad ku dari kartaan. waxaad ka qayb qaadan kartaan workshoopada iyo tababarada dambe soo socda inaad idinka laftigiinu macallimiin ka noqotaan oo halku macbuutaagay aad soo istaagtaan idinku. taas oo soo dhaweyna waxaad aragtaan marka tababargelaysaan in boorarka noocan oo kale lagu soo qoro waxa sponsor gareeyay ururka nooca waxa maalgeliyay ururka nooca waxa kaloo gacan ka geystay ururka nooca oo ururka ku qorma. halka waxaad u jeedaan inaan ururba ku qornay ururkaas ayna magacaan ahayn ku qornay. halka waxa idinka soo baxaysa programkan aan qabanay in dhalinyarada wada ee programka ku foogay programkan ay ku wadaan jeebkooda lacag annagu aan iska ururinay ayaanu ku bilownay programka asadka leydin qaybiyo iyo waxa workshopka lagu galayo iyo contributionka yara workshopka lagu qaato intaba jeebadeedaan ka keenay. gabadhii waa halkaas ka hadlay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Mubaarak Bidhi oo soo dhaweeyay tababarkan ee ururka dallada Sena ay u furtay ardayda dugsiyada sare ee magaalada Burco, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa oo wadankeena kullee ugu horumaray. waxaan u soo jeedin lahaa maamulka Sena inay noo wadaan workshopada noocan kale oo ay joogteeyaan ayaa runtii ka codsan lahaa. waxaan kaloo ka codsan lahaa runtii dowladda inay la shaqayso ururada sidan oo kale sida ururka Sena oo kale. waxaan ogahay anigu in ururkan Sena uu yahay urur haysta kalsoonida dhalinyarada Soomaaliland oo urur ka shaqeeya waddanka oo dhan. ururada kale iyaguna dawliga iyo kuwa dawliga ay ka jira waddanka inay sida Sena oo kale u shaqeeyaan oo ay qabyaaladda ka wacyigeliyaan iyo tahriibta dadka. inagu noo tahriibtu waxa tahriibo oo soo qaadano halka qofku ka jawaabo tahriibtu waxa keenay imaasana waddankeena aynu waddankeena imaasano shaqo abuurna insha Allah waynu heli doonaa shaqadaynu yar. waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada dhowr jeer oo ka hadlay أنا أدي أدوق سوتش هنا الرياضة كلاجوني زين هذا يتجمعنا سيد النقيض بكايك يسولن بكايك النقيض إلا يريو ويسوي وحبر الشرطة. عبدالرزاق عبد الله سكران الشوكة عالمي قبل شعب كبرع.